فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوو حكمتها nolosheenu waxa ay ku dhisan tahay go'aanada aan qaadano. maanta heerka aad taagan tahay waxaad ku soo gaartay waxyaabihii aad ku bixin jirtay waqtigaaga intiisa badan iyo go'aanadii aad soo qaadatay mar hore. halkan waxaan kugula wadaagayaa dhowr xigmadood oo dhiirigelin u noqon doona nafsadaada maadaama adigu aad tahay adiga i daawanaya aad tahay qof nal doonaya ama la damacsan noloshiisa inuu gaarsiiyo nolosha ay u qalanto. taasina waa kugu hambaleynayaa waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. ka mid noqo oo horay haddaadan naga mid ahayn ka mid noqo hadda janalka barbaarta ku tixan subscribe dheh barta guduudan ee hortaada ah si aad u noqoto janalka xidigaha ku tixan ee ka faa'iideysta. xigmadaha soo qaadan doona maanta waxay ku qotomaan oo aan diiradda ku saari doonaa nolosha iyo heerarka kala duwan ee nalaga rabo inaan ka dhigano habdhaqan. xaqiiqdii waxaad cimrigaaga ku dhammaysan doontaa niyad-jab iyo calool xumo haddii aad ku fikirto dadku inay ku wanaajiyaan sida adiga aad u wanaajiso oo kale. marnaba ha ka shalaynin maalin noloshaada maxaa yeelay maalmaha xun ee ku soo mara waxay ku dhaxalsiinayaan cashir iyo khibrad. maalmaha wanaagsanna waxay ku dhaxalsiinayaan farxad iyo xusuus wanaagsan. sidaa darteed marnaba ha ka shalaynin maalin soo marta noloshaada. maalgelinta ugu wanaagsan ee aad samayn karto waa maalgelin inaad ku samaysato noloshaada oo ah inaad wax barto. waxbarashada ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee noloshaada aad ku horumarin karto. xanuun walba ee ku soo mara wuxuu ku siinayaa cashir walbana wuxuu bedelayaa shakhsiyadaada. ma jiraan waxaanan macquul ahayn maxaa yeelay isla ereyga impossible oo ah macquul ma ahan ayaa wuxuu leeyahay I am possible. dadka guuleysta waxay caawiyaan dadka kale halka dadka aan guuleysan ay rabaan inay guuldareystaan dadka kale. dadka guuleysta waxay ku dhiiradaan inay sameeyaan isbeddel halka dadka aan guuleysan ay ka baqaan isbeddelka. dadka guuleysta waxay qaataan mas'uuliyadda qaladaadkooda halka dadka aan guuleysan ay ku eedeeyaan qaladaadkooda dadka kale. dadka guuleysta waxay ka hadlaan fikrado halka dadka aan guuleysan ay ka hadlaan dadka kale. dadka guuleysta waxay si joogto ah u bartaan wax cusub halka dadka aan guuleysan ay isku moodaan inay yihiin dad og wax walba. marka aad go'aansato inaad samayso isbeddel dadka kugu hareereysan ee kugu dhow way kugu qoslayaan isbeddelkaaga ayay ku qoslayaan. marka aad ku adkaysato oo aad iska indhatirto siina wadato isbeddelkaaga dadku waxay isku dayayaan inay ku hakiyaan inay kaa hor istaagaan ay challenge kugu sameeyaan. marka aad ku sii socoto isbeddelkaagii iyo hadafkii aad lahayd hore ugu sii socoto waxay ku qirayaan ay kuna gelinayaan sumcadaada ay sare u qaadayaan. waxayna leeyihiin hebel waa boqor heblaayo waa boqorad waa qof go'aan leh tusaale wanaagsan ayayna kuu soo qaadanayaan. sidaa darteed adiga ayaa ah farxad geliyaha noloshaada. marna farxadaada ha ku xirin dad kale isla adiga ayaa ah milkiilaha noloshaada. marnaba ha ka sugin qof kale inuu isbeddel iyo horumarin ku sameeyo noloshaada. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaana kuu rajeynayaa inaad ku noolaato nolosha aad mudan tahay oo ah nolol qurux badan. intaan ku kulmi doono fiidiyoo lamida fiidiyowgan waxaan ku leeyahay share gareey like saar noqo qofka ugu horeeya ee fiidiyowgan ka bixiya commenti waxaana ku leeyahay mahadsan.